Wabiga ee mara magaalada Gaarissa ayaa buux dhaafay oo karkaarka jebiyay waxaana waxyeello ka soo gaaray beerihii iyo dadkii ku dhaqnaa wabiga jinkiisa kuwaasoo ay ka mid tahay xafada Ziwani ee dhinaca ku haysa Wabiga marasaaka aroornimadii microphone-ka la dhax qaaday barakacayaasha ku sugan xarunta tababarka beeralayda ee loo yaqaan Farmers Training Center. Ninangu naitwa Amina Abdalla kutoka Ziwani cha Lady wa Ziwani. Hapa tumekuja tarehe 14 jana. Tangu tumekuja tujapata huduma bado. Hata usiku tumepata shida sana, tumenyeshewa. Hata hatuna mahema, wengine wamelala nje. Hata watu wa Red Cross usiku wamekuja wamekataa kuandika watu sababu watu hawana mahema, mtu anajificha kwa mwenzake analala. Akikuja akikuta vyombo. Kwa jina naitwa Rashid Mkolu. Mimi kutoka hapa kijiji cha Ziwani amba kwamba jana usiku kwamba kia jana asubuhi saa 10 ndio tulitoka kwa maji na tuliokoa nafsi yetu tukatoka hapa, na pia tangu tumekuja watoto wanakaa nje na hatuna ushahidi yote ambao tulipata. Red Cross ndio ilikuja ikatuangalia ikaenda, na kadhalika hao watu wa county government na kina nani hao wote hatujaona mtu wote ametokea ajitokeza kuja kutuangalia na kutuuliza hali yetu. Kwa hivyo sisi tuko na shida zaidi kuhusiana na maji ya kunywa, kuhusiana na umbu zinatukula. Bismillahirrahmanirrahim. Magacayda waxaa la dhahaa Maxamed Dhugu Aadan, waxaan ka shaqeeyaa Gaarissa County aniga agaasimaha arrimaha qaaska iyo musiibooyinka oo ka dhaca countiga. Hadda waxaa la xilli roobaad ayaa la joogaa, biyo badan ayaa soo baxeen xagga wabiga ka imaadeen, biyahaas oo fatahaad ayaa beerihii soo galeen, waxay soo galeen ilaa dadkii wabiga agtiisa dibnaa waa la soo barakaceen. Hadda waxaa u daran meelaha Msanguro, showgroundka Gaarissa iyo Ziwani iyo Bakuyu waa u daran. Dadku soo barakacay waxay imaadeen meesha FTC way degan yihiin. Committee ayaa jirta committee-dan oo disaster committee arrimaha qaaska. Chairman-ka waxa waaye Gaarissa County Commissioner aniga ka deputy co-chair ku sameeyaa. Waxaa jirta NDMA, Kenya Red Cross, WFP iyo UNICEF ayaa arrimahan ay u xilsaaran badi oo la disaster committee-daas oo arrintan markasta fadhiisato markii uu dhibka noocan oo kala dhaco.